dadkan waxaa la yaabanahay Jack iyo Marish arinteeda dad badan waa shaqaysanayaan shaqa u socoto ma fahamtay shaqa u socoto shaqaysta inaa lacag shaqaynaysiina uma lasiin iyo views laakiin waxaad shaqaynaysaan naftiina ayaad waxa u shaqaynaysaan naar hogaaminaysaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu idin salaamay dhammaan inta ku xiran youtube-kayga farxii Soomaali official dadkii laga beeray ayaantaan is arkin bariyahan wax badan ay ismoognahay laakiin caawo ayada saacada ay tahay sok waxaa 7 saac bar habeenimo soo duubay muuqaalkan oo caawa soo duubay haddana soo gelinaya waxaan arkay wax aan ma aragtay ii sheeg damiirka isiin waay waxaa dhacday inta badan dadkii la socdo ay la socdaan Marish iyo qurux ku dhiig la jeeg dadkii yaqaan way yaqaanaan dadka aqooninne anaa idin sheegay waa gabar iyo wiil youtuber ah oo heer Nairobi isla ahaa oo wax badan isla soo ceeshay oo in badan farxad iyo qusul soo wada qaateen oo maanta dad la isku dhihi jiray ilaahu calaf isugu dar dadka isugu duceyn jireen waa sida wanaag iyo iskaga dhaxeeyay iyo farxadda ka dhaxaysa labadooda hadii la arko oo ummadda dhan ilaahu calaf isugu dar la dhihi jiray waay ayagoon waxba ka dhaxeynin oo ma aragtay walaaltinimo wax waliba iskula duubay iskula socdaan kadib gabadhii ilaahay amarkiis gabadhii waxa u soo baxay leen oo Canada way baxday Marish Canada tagtay hadee tagtay habeenada kamid ah baa waxaa ii sheeg live isla soo galeen labadooda kadibna say war u wadeen jeega quslay kulay hadalla ay tirimo oo ku quslay oo si quslay kadibna ayada waxay tiri adi maxaa u quslaysaa macnaha qusulka macna darada macnaha iska daa waxa oo lagu qusl ma sheegini macnaha kistas yar inta la jartay TikTok la geeyay TikTok markii la geeyay waxa la yiri gabadhii wuxuu ku jajeesoosaa wiilkii ku jajeesoosaa kada meeshii la wadwaday dad views TikTok ka maqan yahay dad views YouTube ka maqan yahay baan ugu soo hadlay meedii soo dhigay ani waa indhahan ka fiirsanay ala soo wadwaday bash ka bacdi dad waxa jira marka waan la aqoonin oo shiyaadiiniin si ah oo dabka shido oo si TikTok ka buuxan TikTok waxa ka buuxa dad shiyaadiiniin si ah de shaydaanka ilaahay buu balan ka qaaday inuu soo hogaamin doono jahannamo dad oo dadkiisa yani adoomankaaga ana jahannamo soo hogaaminaa oo ilaahayna iyo asi balan ay kala galeen shaydaanka uu yiri adiga iyo kuba ku raacawo waxaad ahaan doontaan naarta marka dad waxaa jirin bini aadan shiyaadiini insi ah oo shaydaan insi ah yani waa shaydaan insi ah dadka isku sii diro al-namiim yani dadka dulmiga isugu tii wadooda marka qofka videogaas duubay oo soo dhigay ikan sii share gareeyay ikan commenti gabadhi ku dhibaateena dhahayna yaa maxaa saas u leedahay qusulka Canada maga tagtay ma dhahayo waa shiyaadiini insi والله العظيم واشياء ديني إنسي وضد الله رسول كوضا فرتي إلهي كفرتي ورسول كيسنا كفرتي والنميميال وأن إلهي سبحانه وتعالى أنا ما عرفت إيش كحشوني سبحان الله نميم واي كومنتك بب تدكي قبدي وحيكو إفيان إني قلت كقش ويلكو معناها قلد وين أيضا الوعنات وما عرفت يوتيوب كده هبدا لوغا صار وما عرفت أيضا سبحان الله يوتيوب كده هوديا laga saaray afant ya hadada youtuber soo fariistay waxay leeyihiin ayada profit ka dhigatay iyada ma ka dhiganay hebla jabsaday ani ma dhahay jeega jabiyi video yani ani ma aaminsani jeeg inuu ka jibsanayo Marish YouTube ma aaminsani taas ma aaminsani adow kala waay laakiin ma aaminsana qurux ku dhiigle inuu ka jibinayo Marish YouTube ka jabsanayo ma umaleynani waxa ku soo hartay dadka dhahay breefad ay ka dhigatay breefad maanta waxay kala cararto oo ma aragtay isheeg ay ka cabsato ma bajiraan ya waxa raba marka dadka inaan halkan ugu sheego dadka views si qaldan oo isticmaalayo ama views lacag ha ka gasho ama views TikTok ha ka gasho maanta maalan ahayn adan ilaahay idii xisaabi doona maalinta su'aasho ilaahay idii weydiin doona waxay tahay
addoonteeda maxaa u dulmiseen ilaahay subxaana wa tacaala jawaabta aad siin doontaan ma indhaha intaa mirmirigsaan wiilko qurux ku dhiigle addoonkaagii oo hebel ahaay waxay tiri maxaa quslaysaa intaas aan ku dulmiyey maad dhihi doontaan maxaa dhihi doontaan mideeda kale maariish waa soo fariisatay waxay tiri qalad hadduu ii fahmo walaalkay ha iga raali noqdo raali ahaw ka badan intee loo socdaa raaligelinay soo bixisay youtubekeeda soo fadhiisatay raaligelinay soo bixisay okay soomaali goormeen leenahay anaga heer inaan gaarno aan rabno oo adduunka ma aragtay inaan la jaan qaadno aan rabno dadkaasaaba nagu noole oo ma aragtay ii sheeg ah oo ilaahay ka cabsanaynin oo ma aragtay hal eri bis ee tiri qusulka naga daa gabadhii u dhibaataynaayo oo tiktokeedan weerar ku haayo oo youtubekeedan habada ka bixiyey maanta maalin la ahaynaa idinla weydiin doonaa gacantiina idii su'aali doono oo afkiina idii su'aali doono oo afkiina idii eedi doono gacmihiina idii eedi doono oo ilaahay subxaana wa tacaala wejigiisa markaa tagtaan baa xisaab ee jirtaa gidigeen baa gabnaa haddii xitaa ay qalad yacni ka dhacay maariish yacni qalad hadduu ii arkaa iga raali noqdo ana habeenkaas ma aqaasa iga heed ana xitaa yacni gabadha laga yaabo inay iska madax iska xanuuna iska buuqsaneed xaalada adag waxaa jira dumarka isaga jiraan mararka qaar inay ku jirtaa laga yaabaa inuu hadalladaas iyo qusulkaas oo harka markaas xaalad yacni xanaaq ay ku jirtaa laga yaabaa okay raaligelinayna bixisay gidigeen baa gafnaa adeeryaal 24 saacad waxaa rabtiin sheegtaana namiimyaal dhahdiina tiktok dhex joogtiina youtube dad isku gegeysiina balaay comment ku dhiiglayaal ah adduunka dhan sidaas soo gubixiseen fiiri ilaahay subxaana wa tacaala naarti inuu cafsi idii cafiso ma hal mar oo bini aadan aanana gidigeen bashiiq maanta caalamka oo kitaabka sidaas u haysto oo masaajidka aan ka dhex bixin qalad uu ka dhacaa qof aan qalad uu ka dhicin ma lahan marka waxaan rabaa halkan aan kala hadlayaa please videoga share garee waxaan idin leeyahay soomaaliyey maanta maalinaad aheenaad ka shalaynaysaan waa idinla yaqaanaa ayaanbo qofbaa markii idinlagu jeediyey aad ku wada humuugsataan idinkoona waxba hubsanin idinkoone qaladkan ma qalad gabadhaas lagu dhibaateyn kara miya ma waalidkiisa u gaftay ma wax xunay dhahday ma ha igu quslin qusulka jooji micnaha oo saas bis keliya baad ayada ku weerarteen waxaa kaloo soo haray maariish maanta qof ma aragtay maanta baahi u haysa youtube ma aha waddan Canada tagtay Canada oo qof shaqaysan karto waa gabar dhalinyaro ah oo quruxdaas iyo jamaalkaas iyo joogaas iyo akhlaaqdaas iyo nidaamkaas haysata maanta wax maanta youtube ee ugu dhimanaysa ama tiktok ugu dhimanaysa ma laha laakiin naftiina dulminaysaan inta isleedihiin gabadhan dulmiyo ee daba taagnaado ya idinka ay is dulminaysiin naftiina dulminaysiin ana sidaas ay idin leeyahay caaw waxaan xilligan usoo duubayno videogan waxaan fiirin waayay dulmiga loo geysanayo maariish dulmiga loo geysanayo sida looga xadgudbaayo qof kasta oo maanta waa idin wada aqaanaa waxaa laga yaabaa inaad 5 gmail aad leedahay 5 tiktok aad soo kicis aad gabadhaas ku dhibaateynaysa inta badan waxa daba taagan waa dumarow nabi maxamed calayhi salaam wuu idin sheegay naartad u badantihiin naartan waxaad ugu badantihiin idinkaa cadow isku ah hadda idinkaa cadow isku ah dumarkiino noloshaas yar maanta gabadhaas quruxda badan oo ilaahay nasiibkeeda Canada tagtay kastas yar aa u quuri laadihiin intaas yar aa u quuri weyday fursad iyo jaanisaad ku raadinayseen jaaniskaad ku hesheen comment kastaan aan tiriyaa video kasta oo la soo dhigay aan arka commentiga waa dumar shaqaysto shaqa idin sugose shaqaysto shaqa macna idin leeyahay laakiin dumarow waxaad ogaataan maariish heybad eebbe ku sii habeen la iskama qaad maariish cid wax ka bedeli karta ma lahan idinka naftiina u dulmiseen ogaada gabadhaas iyo wiilkaas waa dad walaala isla soo ceeshay haddaba habeen hore waxay isla saarnaayeen daaqad wayna isla hadlaayaan wayna heshiinayaan ma ila aha maariish yacni qurux ku dhigli saas inay ku kala go'ayaan laakiin idinka ilaahay ugu xishooda oo weli jaanisa haystaane cafis weydiista gabadha aad daba dhigateen dadka youtube-keeda habada ka bixiyeen maanta maalin la aheenaad ka shalaynaysaan maanta haddaa isleedihiin idiima jeedo maariish
shacabkana idiima jeedo makhluuqa cid idii jeedo ma laha ogaada axad oo aan ka gamba karin baa idii jeedo oo ahna allah subxaana watacaala oo aad meelna ugu gamba karin insha allah waana las wada xisaabin doonaa sidaas iyo nabadgelyo intaasaa idiigu warka soo goobay khayraa idiin rajaynaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu